murtiyeed ka soo baxay madaxda miidda iyo magoolka beesha Idris Sugaar maanta ay taariikhdu tahay February 6 2023 shirkaas oo socday 8 saac oo duhurnimo ilaa iyo 10 saac iyo bar oo hadda ah annaga oo ah tiro ku dhow ilaa iyo 100 qof oo isugu jira siyaasiyiin nabadoono culamaa u diin mutacallimiin iyo indheergarad waxa aan isku waafaqnay dhammaantaya erayadan iyo qodobadan hoos ku qoran kow in aan dhammaantaya ka qayb qaadano doorashada ka dhacaysa iyo Dangoraya si gaar ahaaneed iyo inta kale ee gobolka Nugaal dhacaysana 7 bisha oo berri ah 2023 laba waxaan aad u cambaaraynaynaa dagaalkii saakay iyo xalay iyo saaka lagu soo qaaday magaala madaxda Puntland ee Garowe waxa aan ugu baaqaynaa dadka dagaalka soo qaaday in ay si degdeg ah una joojiyaan ugana baxaan magaalada Garowe qodobka saddexaad in aan ka qayb qaadano xalinta dhibaatada ka taagan magaalada Garowe aan adkaynana nabadgelyada annaga oo isku duuban oo isku dhinaca qodobka afraad dawladda waxaanu ugu baaqaynaa in ay qaadato doorkeeda ammaanka iyo nabadgelyada ummadda reer Puntland oo ay mas'uulka ka tahay qodobka shanaad walaalaha reer Sool waxa aan ku garab taagannahay tallaabada iyo go'aanka ay ka qaateen masiirkooda uguna muuqaal dheer tahay 13 qodob oo ay soo saareen oo ay ka mid tahay in ay ka soo horjeesteen kana baxeen gooni istaaga Somaliland ayna si cad ugu biireen oo u hoostagayaan saacada ay soo saareen go'aanka iyo warburtiyoodka dawladda federaalka Soomaaliya reer Puntland waxa aanu ugu baaqaynaa in ay walaalahooda reer Sool isla garab taagaan hiil iyo hooba iyaga oo isku duuban intaas baan ku soo gabagabaynaynaa warmurtiyeedkii ummadda halkan aad ka arkaysaan iyo inta ka maqan ay maanta isku Assalaamu alaykum wa rahmatullah